بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u maleynayaa hadalka intiisii badneed baa sheekha dhameeyay. waxaan raacinayaa beelaha Musa Bukor Jibriil siyaarada ay qabsanayaan waa tu siyaasad ka xaaraana waa tu xukuumad ka xaaraana wasiirku isagoo shakhsiya buu noo iman doonaa ninka xisbi kale ku jiraan isagoo shakhsiya ay siyaarada ka soo qayb gali doonaa tu aan cid uga dan leenahayna ma aha maytida dhimatay inaanu loogu duceeyay bartaa unbuu ku talagalkaygu yahay aniguna aanu bartaa kii xanuunsanaya kii muraadkiisa inuu ilaahay u fududeeyo cidii beesha ka tirsanba sida aan goorahanba amba ayaamaha taaskiisara baawur aan ku dhijinaa laga googooyo ha laga gooyo waxa munaafaqado anagu aanu ka wadnaana iyo dan shakhsiya aanu ka leenay ilaahay nuguma oga Musa Bukorna waa beesha ballaaran ee magaca iyo hantida iyo xoolaha leh in aanu hadduu ilaahay beedankee leeyahay siyaarada silaahi wa rasuula aanu qabanno oo xumaan ku jirin in allaaliya inta magaca aanu wadaagnaana ay ka soo qayb gasho sida uu sheekhu sheegay 5 bishana gudidii haday ganacsatada tahay hadii ay culimada diinka ay tahay hadii ay hadduu ilaahay beedankeega leeyahay ay tahay siyaasiyiintaba in 5 bisha bartan iyo hodeel xaraf aan iskugu nimaadno ku talagalkaygu uu yahay xumaan kalena nagama ahe anigu saan garaasado siyaaradii Musa Bukor baa la qabanaya ma maqale bal maanta inay balligahayga ku soo duusho baan aanu jeclaysanaynteeda bartan iskugu timido fikir caafimaad qabaan isku la nim adalku intaas igu xiriiriyay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh خلاص